السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين عاشقين أصحابي وإن سلامية سلام كادك سلامية. هدي أد نقول عصب تهي جنر كادك عصب تهي كعب فرن كسودو وجه فرن كسودو قلب فرن كسودو. هدي أد نلتوقتينا one love أنكسينا يا أصحابي ما أنت وحان رباه inaan idin soo gudbiyo qiso aan aad u la yaabay marka aan akhrinay. Qisadaasu waxay ka dhacday North America, wadanka la yiraahdo Canada bay ka dhacday qisadaas. Maanta diyaarada ay saaraya waxay geynayaan North America. Asxaabay qisadani waxay ku dhacday dad dhalinyaro ah. Wiil iyo gabar bay ku dhacday. Waa qiso jacayl haddana isku bedeshay murder isku bedeshay qiso jacayl ka bilaabanaysa. waxaa jiray wadankaas Canada magaalada la yiraahdo Vancouver bay ka dhacday qisadatan. gabar iyo wiil ayaa xiriir lahaa. gabadh waxaa la oran jiray Susie, wiilkan waxaa la oran jiray Martin. Susie iyo Martin waxay saaxiibo ahaayeen muddo 3 sano ah. marka xiriirkoodu uu shaqeyn waayay way kala tageen. waxay isku afkartay inay isnabad geliyaan. Susie waxbarashay iska wadatay. Susie waxay gabar 35 jir ah markay kala tagayaan wiilka la yiraahdo Martin waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ah waxay isbarteen si kadis ah gabar la yiraahdo Janet oo kasoo guurtay gobol kale oo isla Canada ah. Janet waxaa kasoo xumaaday guur iyadana oo 3 sano oo guur ah kasoo xumaaday. nin bay soo kala tageen, xoogaa problem ba kasoo dhacay, way kasoo guurtay magaalada kale deganeed Vancouver ayay timid gabadhii Janet ahayd. Janet iyo Martin waxaa dhex maray xiriirka isku bedelay mid xiriir jacayl oo waxaan ku qiyaasay aan sheegi karin. xiriir jacayl oo maaragtay far iyo faraanti meel dhig jir Soomaalida baa dhex maray Martin iyo Janet. xiriirkooda iyo aad u wanaagsanaaday in maaragtay dad jacayl oo waxay noqdeen isha ka farta jacayl maxaa dhig jir isha ka farta baa dhex maray Martin iyo Janet. waxaa dhacday gabadhii hore ee saaxiibka la ahayd wiilka la yiraahdo Martin saaxiibtiisa Susie talaab kasta uu qaado wayba la socotaa wiilkan Martin way waardiisaaba passwordkiisa emailkiisa waxa dhan bay haysaaba. bas markay sida ahayd talaabo kasta uu qaado qof kasta uu yimaado waxay soo degsteen ka dhaafine waxay soo degstay app kaas oo ay ka raaci karto meeshuu marayo oo maxaa la jiray tracking ah oo la socoto dhaqaaq kasta sameeynayo meeshuu marayo wuxuu qabanayo baa u degsan. Martin ma waxba iska mixil saarino passwordkiisa saaxiibtaa way aqoon jirtay ka bedeli waxaas wax xuquuqda ma haysan wiilkaan in iska nadiif oo daacad ah. Susie laftigeedu waxay ka soo jeeday qoys aad u ladan oo maxay shaqaysta oo dad lacag la ay ka dhaltay. laakiin arrintan shaydaannimada ah gabadhan ma aysan qabi jirin. waxay ku qaaday wiilkan jacaylkiisa ayaa waxay ku noqotay qof xun, yacni way ka masayrtay gabadhan wada bartay iyo xiriirkiisa iyo sida hawsha ugu toostay bay waxay ku noqotay obsessed ku noqotay. way daba dhigatay, way waardiyeysaa dhac meeshay tagaan baakay ka casheeyaan maxay ahayd waxay qabtaan ubaxeeda u soo iibinayaan markay wax kasta ay la socotaa qoftaan waa waardiyeyka haysaaba. bas sheekada markay halkaa maraysay bay waxay ku heshiiyeen wiilka la yiraahdo Martin iyo gabadhii Janet ahayd. Janet waa 35 jir, Martin waa 34 jir. waxay ka kala duwan yihiin 1 sano. bay waxay ku heshiiyeen shaqada fasaxa markii la gaaro inay baxaan oo ay aadaan Miami. tigidhadii goosteen inay baxaan holiday u tagaan labadooda bay ku heshiiyeen oo halkaas ma aragtay ugu soo faraanti geliyo bay isku afkarteen. abay helay Susie waa la socotaa talaab kasta wiilkan qaadayo dhag waa u jeedaa oo tigidhadii wixii hawsha dhan waxayba tiri intuusan ninkan u gelin gabadhan faraantiga waa inaan ka takhalusaa. shaydaannimo bay ku fakartay gabadhii Susie ahayd. way joogtay maalmaha kamid ah gabar single mother oo iskuulka isla ahaan jireen bay oo iska tabaraysan oo ilmo yar haysto cidna wax ku siinin bay waxay tiri saaxiibay lacag u baahan tahay arrin baan rabaa in la ii sameeyo. maxay tarinta in lagu sameeyo? waxaan rabaa qoftaas ayada ah oo my ex-kayga hore
وصاحبك اللي يا بان رأينا كتخلصه لعك إيش wax samayn kara waan bixinayaa qoftaan waxa way nolol fiican oo ma haysanina okay tiri aniga horta balqaar ii dhib xogaa lacag dhac ku siisay mid waxay u raadisay qamarji oo dadka dila ah bay u raadisay tiri waa kana wiilkan is arka dhac way is arkeen heshiis baa la gashay waxay tiri qoftaas ka takhlus aniga intaasaan lacag jeeg bay u diyaarisay okay sheekadu markay halkaa marayso dadkan waa warjiro moog wiilka Martin gabadha jannad aha wax war ay u hayaan ma jirto oo shood waa dhindhin kaaliska arag bay maraysaa waxay tiri maalmaha kamida markay rabtay inay hawshi fuliso oo ay taqaan gabadhan maalinka jimcaha inay shaqada xilli dambe ka soo baxdo way ogtahay way la socotaa suusi way ogtahay xilliga shaqada ka soo baxdo wax walba way la socotaa waxay tiri wiilka Martin aha bay tiri Martinow asxaabtii aan iskuulka ahaan jirnay oo dhan baan maanta kulmaynaayo meesha library-ga aan sugu imaanaynaa ee adiguna walaalo waa inaad timaadaan dadkeena hore dhan oo iskuulka ahaan jireen baa halkaas sugu imaanaya okay waxba ma qaadin waa igu yiri maadaama ay dadkayga hore kulli qiyaas sida yihiin dadkii aan isla shaqayn jirnay oo iskuulka isla baranay oo dhalinyaradii bal maanta waa xusay anna waa imaanaya waxay rabtaa gabadhaan inay ku kaliyowdo guriga ileen jaab mashin bay qoftaan dejisay okay yiri wiilka meeshii uu tagay gabadhii baa timid gabadhii jannad ahayd iyadoo waxyo iyo adduun ku raran bay gaari ka soo degtay ninkan tuuga killerka ah waa diyaarsan yahay meesha baabuurta lagu barkinka ku diyaarsan yahay uu sugayaba bas dhac uu soo qabtay mustaqbaldu soo qaatay dhac saddex buu ku dhuftay wuxuu iska dhigay marka si loo daboolo falkaas gabadha lagu dilaayo waxa la qorsheeyay si looga dugo buu wuxuu ka dhigay wax nin tuug ah oo dhacaya gabadhan camal buu ka dhigay falki boorsadeeda iyo wax buu dafay oo la caaray xabadna oo ku dhufto oo qari yani in dadku markay yimaadaan ay u maleeyaan fal maxay ahayd tuuginimo ah ee fal dil ah oo loo sabr uusan ahayn ninkaan tuug wax dhacay inuu u ekaysiiyay boorsadeedii wax buu dafay oo maxay ahayd gadaal ka yimid xabadna dhac oo ku dhuftay gabadhi bartay ku dhimatay gabadhi jannad ahayd خلاص waliska yimid oo nin tuugo ahaa oo rabay inuu wax ku xoogo boorsadeedii wixii uu dafaya halkii baa ma aragtay hawshi lagu magaciisay waxa loo qaatay nin tuug ah oo gabadhan dhacay hawshi markii la sii waday baaritaanka police ma quusteen ay sii wadeen baa waxa soo baxday in uu ahaa dil la soo abaabulay oo gabadhan maxay ahayd arinta ku dhacday ee tuugnimo aysan ahayn wax qof dhici rabeen uu ahaa dil waa la soo baaray waa la soo ogaaday gabadhii inay maxay ahayd oo ka dambeysay qoftii suusi ahayd ay ka dambeysay baa la soo ogaaday asxaabay marka adduunyada in saaranahay maalin kasta wax aynaan filnayn baa horta ka dhaca marka waxa anigu idin kula talinayaa gabdhaha wiilasha marka ay kala tagaan aan xiriirkooda uu xumaado gadaal ha u soo jeclaanina oo fal sheedaan ha ku dhaqminina sida hadda gabadhan ay waxay sameysay oo kale gabadhan jannad ah ninkan way kala tageen xiriirku uu hagaagi waayay gabar buu helay mustaqbal buu diyaar u ahaa inuu sameysto maxaa ku kalifay masayr marka masayrka noocaas ah baan idinkaga digayaa gabdhow iska ilaaliya barnaamijkeeni maanta intaasaan kusoo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh